magacaygu waa faarax kaabi. Professionkaygu waa tagsiile. Waa necbah ragga dumarka dila, laakiin dumarku way kaa xanaajinayaan marmarka qaarkood. For instance, habeen gurigayga waxaan ka baxay 3 am. maalintii baan taxi waday, full hanger baan u waday. Suuqa quiet buu ahaa. Mar waxaan tagaa rank tag, mar hotel tag, mar kasiino tag. Nag waan waayay wax shaqaa. Ama yaaban xaggaa airportkan iska qabtay. 5 saacadood baan fadhiyay because daaradii xumayd ee fortune baa imaan weyda baa la yidhi. Akharkii way timi, shaqa ii soo dhacday. Shaqadii marka ii soo dhacday, hindi xiloo Punjaabiba oo shaqadii iga qaatay igala cararay. Dan waan xanaaqay, afid baan idhi. Gurigaan iska qabtay anoo double hungry ah. Dasnoo qado. Xaaskii oo fadhiga xinaam cidyaal marsanaysa. Walaal noo qado, waay baan ku yidhi. Suuqan taanka wayn ka soo iibso. Kulahaa. And then I really got xanaaq. I gave her dhirbaaxa inda wajiga. Buuc! Should happens. Laakiin she deserves it, samaaha. This behaviour is not just unacceptable, it's criminal. You can get help and support by talking with an experienced counsellor on this confidential helpline, 1800 200 526. To violence against women, Australia says no. Authorised by the Australian Government Camp.